The thing that upsets the occupant of the White House, his goons in the Republican Party. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يالكسو دوادا واربحين كسابسن إلهان عمر أو مركا لكو قوليستي كرسي حزب جيدا أقل كوكيلة إلهان عمر أو كسو تشيدا جاليدا صوماليا دالك مريكن كأيا كو قوليستي دورشاي حزب جيدا دحجيدا كاقشاي كاسو لوغو ترتمي متلادا كرسي حلبان نمدا أقل كوكيلة دقمك كميدا قبل كمينيسوتا waxaa loolan adag kula jiray siyaasiga lagu magacaabo Antonio Moulton iyo saddex musharax oo kale kuwaas oo dhamaantood u hanqal taagayay in ay iyada meesha ka saaraan dhowrkii maalmood ee ugu dambeysay ayay Ilhaan la kulmaysay cadaadis xoogan iyo dhaleeceyn inteeda badan loogu jeediyay baraha bulshada laakiin taageerayaasheeda xisbiga ayaa mar kale Ilhaan u xushay inay difaacato kursigeeda degmada shanaad ee Minnesota marka la gaaro doorashada Mareykanka ka dhacaysa bisha November tirada codadka ay Ilhaan heshay ayaa ah 57.4 halka Antonio Moulton oo ah ninka la tartamayay uu helay 39.2 Ilhaan ayaa guusheeda kadib waxa ay bageeda Twitterka ku soo qortay gudaha Minnesota waxaan markasta ognahay in dadka is-abaabulay ay ka adkaanayaan lacagta la abaabulay caawana dhaqdhaqaaqeenu guul kaliya ma uusan soo hayn waxaan kasbanay maamul isbedel keenay iyadoo ay jiraan dadaalo ay dad gobolka ka baxsan ugu jiraan in ay guul darro nagu dhacdo mar kale ayaan taariikhda dhignay iyadoo ay jiraan weerar nagu socday taageeraduna way sii korodhay Antonio Moulton oo ah ninka sida weyn ugu xusul duubayay inuu Ilhaan kursiga ka faramuroojisto ayaa la sheegay inuu isticmaalay lacag aad u badan lacagta badan ee uu aruursaday ololihiisii doorashada awgeed ayaa ninkaani loogu saadaalinayay in uu ka guuleysan doono Ilhaan wuxuu iibsaday inta badan xayisiimaha warbaahinta ee gobolka Minnesota taasoo cabsi badan gelisay taageerayaasha Ilhaan Cumar musharaxiinta kale ayaan helinin codad sidaasi u sii badan afartii sano ee la soo dhaafay waxa ay Ilhaan si weyn uga dhex muuqatay siyaasadda Mareykanka iyadoo codkeeda ku muujinaysay sida ay uga soo horjeedo siyaasadda maamulka madaxweyne Trump waxay noqotay gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliya ka soo jeeda ee heerkaasi gaadha sidoo kale waxa ay ka mid tahay haweenka muslimiinta ah ee markii ugu horeysay ku biiray Kongareeska dalka Mareykanka Ilhaan oo kursigeeda difaacanaysa ayaa ku guuleysatay codad ka badan kuwii ay u baahneed in ay ku soo baxdo sidaasna waxa ay ku noqotay musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada uga qayb gali doonta bisha November waxay doorashada ku wajihi doontaa musharaxa ka soo jeeda dhinaca xisbiga jamhuuriga xisbiga dimuqraadiga ayaan wax walwal ah ka qabin natiijada doorashada November ay ka falanayso Ilhaan afartankii sano ee ugu dambeysay ayuu xisbigu ku xooganaa gobolkaasi shows up in Congress thinking she's equal to them.